akhyaarta sharafta badan ku soo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tube oo laga barateen barnaamij xiiso badan. Maantana mawduuca waxaan idinkugu haynaa waa maxay saaxiibtinimadu, astaamaha ay leedahay iyo heerarka kala duwan ee saaxiibtinimada. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo bidhow riix batonka casaanka ee subscribe-ta, like saar si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Saaxiibtinimadu waa xiriir ka dhexeeya jacayl ka dhexeeya dadka, waana ka xoog roon xiriirka ka dhexeeya hay'ad ahaan, waxaana lagu bartay maadooyinka tacliinta sida isgaarsiinta, cilmiga bulshada, cilmi nafsiga iyo falsafada. Waxaa la soo bandhigay fikrado kala duwan oo saaxiibtinimo ah oo ay ka mid yihiin aragtida isweydaarsiga bulshada, aragtida sinaanta, lahjadaha la xiriira iyo qaababka isku xirnaanta. Inkastoo ay jiraan noocyo badan oo saaxiibtinimo, qaarkood oo ay ku kala duwanaan karaan meel ilaa meel, astaamo gaar ah ayaa jira. Noocyo badan oo ka mid ah xiriirada noocan oo kale ah. Astaamaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah kalgacayl, naxariis, jacayl wanaag, kalgacal, naxariis, daacadnimo, deeqsinimo, isfahan, iscafin, isku naxariisasho, wadaagidda shirkad kasta oo aaminaadda iyo kartida qof ahaanta u muujinta qofka kale dareenkiisa iyo khaladaad samayn la'aan, cabsida xukunka saaxiibkiis. Saaxiibtinimada waa cunsur ama nooc muhiim u ah xirfadaha dhisidda, barashada cilmi nafsiga, kobcinta saaxiibtinimada carruurnimada. Fahmidda saaxiibtinimada carruurta waxay u badan tahay inay si aad ah diiradda u saarto meelaha ay ka midka yihiin nashaadaadka, isku dhowaanshaha jirka iyo waxyaabaha la wadaaga. Carruurta badankood waxay u muuqdaan inay ku sifeeyaan saaxiibtinimo xagga waxyaabaha sida wadaagidda. Carruurtuna waxay u badan tahay inay la wadaagaan qof ay u arkaan inay saaxiib yihiin. Markay carruurtu qaangaaraan, waxay noqdaan kuwo shakhsiyan ka yar oo ka warqabaan kuwa kale. Waxay helayaan awood ay kula qabsadaan asxaabtooda, kuna raaxaystaan ciyaar kooxeed. Waxay sidoo kale la kulmaan diidmo asaaga ah markay sii dhex marayaan sanadaha carruurnimada dhexe. Saamaynta saaxiibo wanaagsan da'yar waxay ka caawinaysaa cunuga inuu ku wanaagsanaado bulshada dhexdeeda hadhow noloshiisa, iyada oo ku salaysan warbixinada macallimiinta iyo hooyooyinka. 75% carruurta dugsiga xanaanada leh waxay leeyihiin ugu yaraan hal saaxiib. Tiradan ayaa gaartay 78% ilaa fasalka 5, iyadoo lagu cabbiray isuduwidda asxaabta. iyo 55% waxay leeyihiin saaxiibo aad isugu dhow. Qiyaastii 15% carruurta ayaa laga helay inay yihiin saaxiibtinimo aan joogto ahayn oo soo tabinaya xilliyada aan wadajirka ahayn asxaabta ugu yaraan 6 bilood. Faa'iidooyinka suurtagalka ah ee saaxiibtinimada waxaa ka mid ah fursadda lagu baran karo ku saabsan naxariis darrada iyo xallinta dhibaatada. Tababarka waalidku waxay waxtar u yeelan kartaa ka caawinta carruurta inay saaxiibo yeeshaan. Ellen Kennedy Moore wuxuu sharaxayaa 3 waxyaabood oo muhiim u ah samayska saaxiibtinimada carruurta. 1. Furfurnaan. 2. La mid ahaansho iyo madadaalo wadaag. Waalidku waxay kaloo ka caawin karaan carruurta inay fahmaan tilmaamaha bulsheed ee aysan iyagu baranin. Ka soo qaadayana daraasad uu sameeyay Roberta Selman iyo kuwa kale. Kennedy Moore wuxuu sharaxayaa marxaladaha horumarineed ee saaxiibtinimada carruurta.
isagoo muujinaya awood sii kordhaysa oo lagu fahmayo aragtida dadka kale. Waxaan doonayaa jidkayga waa maxay aniga, xeerarka daryeelista iyo wadaagista, iyo saaxiibada asal ahaan khafiifka ah. Dhalinyarada labada saaxiib oo ku nool futaan barbaarta saaxiibtinimadu waxay noqdaan wax isa siinta, wax wadaag, wada sheekaystaan, taageero iyo iskaa wax u qabso. Dadka qaangaarka ah waxay u muuqdaan inay raadinayaan asxaab kuwaas oo ku bixin kara tayo noocaas ah, xiriir wadaag, iyo inay ka fogaadaan asxaabtooda dabeecadda dhibaatada leh. Waxay soo jeedinayaan inaysan buuxin karin baahiyadan. Xiriirku wuxuu bilaabaa inuu sii wado diiradda ku salaysan qiyamka la wadaago, daacadnimada iyo danaha guud, halkii laga fikiri lahaa muuqaalka jirka sida u dhowaanta iyo marin u helidda waxyaabaha lagu yaqaan astaamaha carruurnimada. Daraasad lagu sameeyey jaamacadaha Texas ee Austin ayaa baaray in ka badan 9,000 oo dhalinta Mareykanka ah si ay u go'aamiyaan sida ku lug ahaanshahooda dhaqan xumo sida xatooyo, dagaal iyo goosnimo ay ula xiriiraan saaxiibtinimadooda. Waxyaabaha la helay waxay muujinayaan inay dhalinyarada aanay suuragal ahayn inay ku lug yeeshaan dabeecadaha dhibaatada markay saaxiibtinimadooda ku fiicnaadaan, dugsiga ka qayb qaataan, nashaadaadka iskuulka, ka fogaadaan cabitaanka iyo caafimaadka maskaxda. Kasoo horjeeda, waxaa laga helay qowmiyadaha qaangaarka ah ee ku lug yeeshay dhaqan xumo haddii 10 jirka ay saameeyaan ku yeeshaan asxaabtooda si ay ugu lug yeeshaan dabeecadaha dhibaatada. Waxay ku xiran tahay inta ay la kulmeen asxaabtaas iyo haddii iyaga iyo kooxaha saaxiibtinimadooda ku wanaagsan yihiin dugsiga. Daraasadaad ay sameeyeen baarayaal ka socda jaamacadda Purdue ayaa lagu ogaaday in saaxiibtinimadii la sameeyey inta lagu jiray waxbarisadii dugsiga sare kadib ay ka dheer tahay saaxiibtinimadii hore. Saaxiibtinimada ee qaangaarnimada Veronda Shafty Iswieshin, Jonathan on David oo u qoray Julius Scholar oo ka tarjumaysa Ingiriiska oo ah saaxiibtinimada u dhexaysa Jonathan iyo David, 2 saaxiibo ka hor intaanan sawir u soo bixin. Saaxiibtinimada qaangaarnimada waxay bixisaa wehelnimo, kalgacal iyo sidoo kale taageero shucuureed, waxayna si wanaagsan wax ugu biirisaa caafimaadka maskaxda iyo hagaajinta caafimaadka jirka. Goobta shaqadu waxay ku burburi kartaa tartan, sidaa darteed dadku waxay bartaan inay qarsadaan nuglaanta iyo burburka asxaabta. Saaxiibada saaxiibtinimadu badanaa waxay ku qaataan dareen isdhaafsi. Way adag tahay in la yiraahdo halka ay ku dhammaato xiriirka iyo saaxiibtinimada dhabta ah. Dadka waaweyn badankood way qiimeeyaan dhaqaalaha, amniga, shaqadooda. In badan saaxiibtinimada ay la shaqeeyaan dadka intooda ugu badan ayaa leh celcelis ahaan 2 saaxiib oo isku dhow. Daraasado fara badan oo la sameeyey dadka waaweyn ayaa sheegaya in saaxiibtinimada iyo xiriirka kale ee taageera inay kobciyaan isku kalsoonida. Halkan waxaa inoogu eeg barnaamijkan uga hadlaynaa saaxiibtinimada, astaamaheeda iyo heerarka kala duwan oo ay soo martay. aad iyo aad mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.